caddayhaana qaad noqdaa labadii hoy wadaayagleelaa caddayhaana qaad noqdaan haddii ay ubad kala helaan labadii hoy wadaayagleelaa caddayhaana qaad noqdaan haddii ay ubad kala helaan miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan dadku waxaan la hadlayaa London ku nool ama Europe ama America adinkan waa in quseeyaa fikradaha iyo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد عمر ومحسنتاي fikradaha aan ka hadlay iyo waxyaalaha aan ka hadlay waa idin quseeyaa hadaa wadan qurbo ku nooshahay hadaa awlaad leedahay ama Soomaaliya xataa joog meel kasto adduunka ku nooshahay koo horta waxaan rabaa inaan dhaho aad ba u mahadsantiin allahna aan ku mahadiyo subhanahu wa ta'ala oo ii fududeeyay alxamdulillah allah subhanahu wa ta'ala ii fududeeyay oo yaani wax dhib aan tusinin labadaas maalin jimcaha iyo sabtida oo full day ahead oo 10 bilaabaneysay ilaa ay dhamaatay maaragtay 6 pm oo UK dadkii igala soo qayb galana maaragtay ayagana ilaahay ajra ka siiyo in ay maaragtay ila caawiyaan oo team aad u wanaagsan ahaayeen ilmaha ما شاء الله ilmaha oo dhan waxay ahayn ilmo aqli badan ilmo rabo in maaragtay noloshooda ay bedelaan ilmo rabo inay dadaalaan koo waxa idin siinaa horta feed labadii hoy wadaayagleelaa caddayhaana qaad noqdaan haddii ay ubad kala helaan labadii hoy wadaayagleelaa caddayhaana qaad noqdaan haddii ay ubad kala helaan miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan iga raali ahaada dadka aan wali waalidka aan noqonin especially dadku waxaan la hadlayaa London ku nool ama Europe بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وائن سلامي دمانتين 10 minute كوران سو غلايان هاي okay and first of all waxaan rabaa in waalidiinta waxaan soo galay reason ka saacada soo galay waxay tahay inaan ku iraado waalidiinta aad ba u mahadsantihiin shaqo fiican qabateen wallahi aad ba ugu farxay farxadeedana shalay yani farxad la soo koobi kara ma ahan markaan fiiriyay waalidiintii ilmihii aan fiiriyay markaan bilaabay feedback ahaan aan soo galay yani in aan waalidiinta siiyo iga raali ahaada dadka aan wali waalidka aan noqonin especially dadku waxaan la hadlayaa London ku nool ama Europe ama America adinkan waa in quseeyaa fikradaha iyo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد عمر ومحسنتاي fikradaha aan ka hadlay iyo waxyaalaha aan ka hadlay waa idin quseeyaa hadaa wadan qurbo ku nooshahay hadaa awlaad leedahay ama Soomaaliya xataa joog
meel kastoo adduunka aa ku nooshahay. kow horta waxaan rabaa inaan dhaho aad baa u mahadsantiin allahna aan ku mahadiyo subxaana wa tacaala oo ii fududeeyey. alxamdulilah allah subxaana wa tacaala ii fududeeyey oo yacni wax dhiba aanay tusinin labadaas maalin jimcaha iyo sabtida oo full day ahayd oo 10 bilaabanaysay ilaa ay dhamaatay maaragtay 6 PM oo UK. dadkii igala soo qayb galana maaragtay ayagana ilaahay ajra ka siiyo in ay maaragtay ila caawiyeen oo team aad u wanaagsan ay ahaayeen. ilmaha maasha allah ilmaha oo dhan waxay ahaayeen ilmo caqli badan, ilmo rabo in maaragtay noloshooda ay bedelaan, ilmo rabo inay dadaalaan. kow waxaa idin siinaa horta feedback ugu horeeya, kabacdina waxaan rabaa wax yar waalidiinta inaan la hadlo oo waalidiintan ay qusayso aniga nafsadeyda xitaa oona iska saareynin. ilmaheena maanta waxay u baahan yihiin waxyaalo badan oo correction ah. yes, number 1 action aanan qaadi karin aan qaadna, ficil aad iyo aad muhiim u ah anigana allah subxaana wa tacaala igu duway. haddii ay weydiisid bil ka hor ama 2 bilo ka hor ra'yigaas iguma jirin. waxaa igu jirtay ilmahayga kaliya waxbar, maskaxdeeda maaragtay ma sii geli jirin. laakiin mar kastaba niyadda waxaan gashin jiray, waxaan dhihi jiray what if ilmaha maaragtay waxaan dhiirigelinta aad sameynaysid wax walba geedka aasaasu kasoo bilowdaa. haddii ka waran adigoo ilmo yar ah lagugu bilaabi lahaa, adoo maaragtay ageka ilmahaaga ay jiraan anuu jiro, haddii aan bilaabi lahaa in maaragtay self esteemkayga u dhismo, in confident aan yeesho, in aan maaragtay cadkayga goosan karo, waxaasoo dhan aan ku fikiri jiray. laakiin hadda yaa safe garayn karnaa awlaadda haysano, awlaadda allah subxaana wa tacaala nagu irsaaqay. ilaahay wuxuu nooga dhigay mas-uuliyad. ilmaha maaragtay garasho ma lahan, waxa u leh caqliga waa annaga. alxamdulilah horta waxaa ugu mahad celina allah. waalidiintan waxaa idin leeyahay horta well done. ilmaha maasha allah waa la dadaasheen xagga diinta, waxaa kala dadaasheen maaragtay xagga aragooda, wax kastaba maasha allah. ilmaheena soomaalida waa number 1. weli ma arkin ilmaheena soomaalida liito. caqli haddii la dhaho wax walba wallahi waa siinaa, kama hagrano. waxaan rabay wax yar oo structure ah inaan siiyo 3 tips ah. 3daas tipna aa idinla wadaago ayna fiican tahay haddii aa ku dhaqantid in ay maaragtay ay wax kaa anfici doonto. tibka koowaad, in aa hubisid ilmahaada in aa siisid rule ay ku dhaqmaan oo structurena aa u samaysid. wax maaragtay ama dhiirigelin aa ku dhiirigelisid in ma dhiirigelin kama wada sorry, structure inaa siisid oo wixii wadadii ay qaadi lahaayeen ina adi tustid, wadadii ay mari lahaayeen ina adi mas-uuliyadeeda qaadid. maahan inuu cunuga mas-uulkiisa qaado, sababtoo ah hadda waxaa laga yaabaa ilmahaaga in maaragtay iskuulka ay ku gaareen secondary school oo haddana GCSE-ga ay sameynayaan oo ama GCSE-ga ka hor wax waxaa jira fair option la dhaho oo adiga lagu dhahayo ilmihii maaragtay soo dooro. so ilmahaaga ma ku deynaysaa aleeda cunugi adiga dooro waxa future-ka aadi lahayd, mise adiga structure u noqonayo oo dhahayo wadadaana kuu fiican. sababtoo ilmihii ma garanayo caqligii weynaa weli ma gaarin oo uu ku dooran lahaa wuxuu noqon lahaa. mistake sameynaa waalidiinta qaar waxay dhahaan cunugeyga inaan freedom siiyo, cunugeyga ma aragtay inaan saaxiib la noqdo. yaa saaxiib la noqo, laakiin inaa boundary siisid waay. saaxiibkaas aa la noqonaysa laguma diidan, waa number 1 ilmaha caqliga wax u dhiso. laakiin boundary ah inuu adiga instructionka u samayso uu kaa qaadan karo cunugaas iyo directionka. sababto caqliga instructionkaas uu ku qaadan lahaa iyo directionka uu wadadaas ku mari lahaa weli ma gaarin. maahan inaa asaga u daysid aad tiraahdo bax adiga optionkaaga adiga dooro, meesha adiga kuu fiican adiga dooro. aniga waxay ila tahay taas xoogaa qalad ah, sababtoo adoo cunug niid u dhisaayo aad directionkana siin kartaa. so always number 1 waxaan ka hadlaya cunugaaga directionka uu qaadi lahaa adiga inaad go-aanka maaragtay u tustid oo adiga aa u doortid cunugaaga directionka fiicnaa. taas number 1. number 2, ilmahaaga ku dhiirigeli inay go-aan gaaraan intay yar yihiin, in go-aankooda ee maaragtay ee go-aan fiican uu noqdo ay gaaraan. bar inay noqdaan mas-uuliyad. mas-uuliyadda number 1 waxaa ka dhigi karo aa ku tusi kartaa 1 example aan ku siinaa.
markay qalad sameeyaan oo aad ku xanaaqdid meel fariisii koona fariisii waxaad tiraahdaa kulama hadlaa ilaa qaladkaaga aad soo saxdid geeskaas iga fariisaan laha ila hadlin sababtoo qaladaa gashay cunugii markuu meesha soo fadhiyo uu soo laabto waxaad tiraahdaa waxaa rabaa inaa ii sharaxdid qaladkii aad samaysay adoo mas-uuliyadeeda qaadayo meesha maaragta qaladkaas aniga maaragta xanaaqu iga xanaajiyey what do you think waxaa ka xanaaq ilmihii su-aal inaa weydiisid waay ilmahana maasha allah waa intelligent markaa la hadashid caqligoodii kuu sheegayaan iyo wixii ay dareemeen meeshaa dhihi lahayd qaladkaa adig gashay fiiriya cunug saari lahayd qaladaa gashay qaladka aad dhihi lahayd waxaad tiraahdaa see u maleysaa waxa aniga iga xanaajiyey ina adig koonahaas ku fariisiiyo fiiriya hadalkuu kala yahay iyo meesha ka dhihi lahayd cunug qaldanaata cunug madax adagaata cunug kanaa tahay laakiin midda keliya oo niida u dhisi karto waxay tahay oo caqligiisana uu go-aan ku gaari karo u dhihi karo waxaa sameeyey wax qaldanay ahaayeen waxaa markaad tiraahdid maxaa u maleysaa reasonka xag kuu fariisiiyey maxaa u maleysaa waxa aniga iga xanaajiyey wuxuu yahay cunuga fiiri optionaa siisay su-aalaa weydiisay maskaxdiisuu ku noqonaa marka maskaxdiisu markuu ku noqdo su-aashii asaa isweydiiyey jawaabteedu wuxuu ku siinayaa because waxaa halkaas ii fariisiisay fiiri mas-uuliyaddu qaadana waxaan ku dhahay ka dhig inuu responsible asaga yahay qaladkii uu galay jawaabta uu ku siin lahaa waxaa halkaas ii fariisiisay sababtoo ah qaladkaas iyo qaladkaasaa sameeyey taasaa ii geysatay taasna ilmaha waxay u fududeysaa waxayna bartaa wadada ay mas-uul ku qaadi lahaayeen ayagoo yaraantay ku bilaabaan taasna waalidiinta maaragta waxaan ku dhiirigelinayaa in ilmahooda ay ku dhiirigeliyaan in ay maaragta go-aan ay gaaraan maaragta mas-uulna ay ka noqdaan go-aankay gaaraan tibka saddexaad igana raali noqda english ahaan igu qoray marka waa inaan markastoo af soomaali aan ku sheego ilmahaada waxaa ula hadashaa hadallo ma aragtay oo adiga aadan afkaaga ah markaa kasoo bixinaysid aadan u quurin oo hadal manner fiican ah waana og tahay inay kiiga number 1 ilmaha ay personal u qaataan oo self esteemkooda dilo inuu yahay hadallada ilmaha hadallada negative-ka ah kula hadalna ilmaha iyo hadallada ma aragta dhahno cunugan inkaaru qaba cunugan ma aragta waasaan cunugan waasaan ma ahan labada aan soo sheegay midka hore haddii cunugaaga guideline aad siisid oo aad instructor adiga u noqoto meeshuu mari lahaa midda labaadna aad mas-uuliyad maaragta aad ku dhiirigelisid inuu cunugaas go-aan yeesho oo mas-uuliyadna uu qaado saddexaad aad ka ilaalisid hadallada aad kula hadlaysid ilmaha hadallada ma aragtay wax markay qalad galaan oo self esteemkooda hoos u dhisaayo waxaa waay hadallada afkeena kasoo baxo ilmaheena maasha allah confident ka maqna ilmaha markay dhashaan farxad confident wax walbay wataan laakiin qaladka waali waxaa leh annaga iska leh waxaa u leenahay cunugii markuu maantay uu wax kusoo baas uu kusoo dhaco well done laakiin hadduu wax ku dhaco aniga kulama hadlaayo wixii grade-ka kaarab maa keena ka hor keentay so cunugii laba niyaduu ka dhintay niyaddii iskuulkana uu kasoo dhintay adiga waalidka ahaana niyadda ka dishin adiga waalidka ahaana qofku dareema inaad jeceshahay qofku isleeyahay qofkaana aniga maaragtay waalidkayga iskuulkii wuxuu niyadda gashan karaa macallimiintan they don't care about you ma ku kala jecla laakiin waalidkii waa waalidkii hoosta soo gashan lahaa ilmahana ogaada waalidiinta caqliga wadamada ilmaha lagu dhalo wadamadan way ka clever garaysan yihiin waxayna ku koreen system ah in jacayl la tusiyo in loo naxariisto laakiin systemkaas annaga ugu horeeyay islaamka iska leh islaamka laga soo qaatay diinteen islaamkii ku jirta in ilmaha aad tusisid naxariis ina ilmaha tusisid jacayl ina tusisid u dhawaasho oo hoosta aan maaragta aan soo dhaweysano labadii hoy wadaayaglela hadday hana qaad noqdaan haddii ay ubad kala helaan labadii hoy wadaayaglela
hadday hanaqaad noqdaan haddii ay ubad kala helaa miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan labadii hooy wadaayag leelaa hadday hanaqaad noqdaan haddii ay ubad kala helaan labadii hooy wadaayag leelaa hadday hanaqaad noqdaan haddii ay ubad kala helaan miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan cunuga markuu qalad galo maxaa maskaxda ilmaha kobciyo waxaa kobciyo markaa feedback siisid markaa feedback oo maskaxdiisa u dhisaysa aad siisid seedka markaa wax aad samaynaysid kuma shubaysid wax qaldan waxaa rabtaa wax wanaagsan inuu kuu dhalo cunugaas wax maskaxdiisa uu galo waxaa ogaataa beri kaasa kasoo baxayo marka waxaa u dhahaya hadal ereyga baaragtay qodobkayga saddexaad maanar fiican kula hadal ilmaha maanarka fiican waxa ugu weyn waay cunuga markuu wax kusoo dhaco kaxay dukaanka gey wax fiican usoo iibi waxaa ku tiraahdaa yes waad isku dayda inaad dadaashid waxaa samaysa well done you tried wixii waa isku dayday waana gaaraysaa insha allah la fariiso wixii meeshuu ka qaldaya adaa og laakiin haddaad niyadda kasii dishid asagoo iskuulka niyadda kasii dilay oo aad tiraahdo tuushanaan ku geena aad iskuul tagtid aad tiraahdo cunugayga damiin waaye cunugayga wuxuu ku hooseeya xisaabta cunugayga kanuu ku hooseeya maaragtay wax uu yaqaano ma lahan macallimiin oo iga qabta cunugii maskaxdiisaad dishay laakiin waxaa rabtaa systemka iskuulka inaad maaragtay ku raaligelisid systemka iskuulka inaad ku waxaysid you never know shaqadaas inuu beri aadi doono waxaa is leedahay inuu kuu barto in wax asaga anfici doono in kale inuu ma ogid laakiin meesha clear oo muraayadda ah ka dishay muraayadaasna ilmaha waxa ka dilo oo number 1 ay personal u qaataan markay labada waalid ka imaadaan markay hooyadii aabaha ay ka imaadaan waxaas ama qofka hay uu ka imaado ay waxay u qaataan personal waxayna ugu qaadanaa niyadday waxay gashteen jacayl وأديكو مال جعل نيدك شتاء وهذا نوح لوجو له قف وين توائس أتكين كرتا لك علمي عقدة قادن عقدة لو وين هذا عقدة كوكرين مركو ولا على أنا نكسي ديرانيني والدين تو أنا عن كمية هاي أن سكوت دينو إن سيدا دين إسلام إنه شيء جس إن علمين وكل دقنو إن علمين أن كل دقنو ما نرأه waxa wanaaga aan ognahay sababta oo wanaag ayaga ma oga mana aysan gaarin in anaga ma aragta ku soo jiidno oo ku dhiirigelino wadada fiican aadan ugu faraxsana ilmaheena ma aragta in istaagaan dada waxay ku leeyihiin oo ilmaha ma u baahna ma aragtay motivation ilmaheena anaga waa weynayaan soo helin way u baahan yihiin wallahi way u baahan waxaan ugu baahan yihiin dhiirigelin oo sababta waxayna ogaanayaan inaysan future-koodi aysan wax qaldan u arkin personal development wax badan oo ka dhisay wallahi wax weyn oo ka dhisay inaad imagine garin karin ilmahaas indhoodan ka arkay markaa weydiishay interview aan ka qaaday one by one qaarana soo duubina jiro aan la fariistay aan la sheekaystay aan ku iri what do you think ina gaartid cunug kasta wuxuu la soo baxay ma sha Allah wax aniga maskaxdeeda soo gali karin ilaahay subhanahu wa ta'ala u ziyaadiyo aqliga ku jiro waxa ku jiro passionate ku jiro laakiin ya passionate kas korin kara adiga waalidka korin kara yaa hoos u dhigi kara adiga waalidka hoos u dhigi karo cid kale oo hoos u dhigi karta malahan adiga u gaabin karo adiga u dheereen karo laakiin hadalada aad kula hadlaysid ilmahaaga wanaaji hadalada ka ilaali ee qalad markay galaan oo hebel qalad leh hebel qalad aad dhihisid boundary na yell ilmahaaga ha dhihin friends sala ahay oo maanta dhan cunugi idea kale u aragtid friends yes be friend لكن show them boundary in adiga boss tahay adiguna dictator aan noqoninin in adiga mas'uul ka tahay oo aad dhehaysid meesha aan fariisto inaan ku dhigi karo inaan fariistid ana ku dhalay
inay dareemi karaan at the same time aad bari kartid instructionka iyo wadadii ay qaadi lahaayeen. runba lagu guursadaa hanta ubad lagu dhisaa horumar la tiigsadaa runba lagu guursadaa hantiba ubad lagu dhisaa horumar la tiigsadaa miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan war miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala marka walaalayaal aad u mahadsantihiin announcement kala rabaa inaan sameeyo haddii waalidiin aad tihiin oo London joogo waxaa soo qoray pagekayga aan soo geliyay in aan sameyn doono 20 May ilmaha waxa aan u sameeyay oo kala ah oo like hal maalin workshop oo waalidiinta aan ku tababari doono maaragtay self development especially maaragtay cabsida inay ka baxdo in waxbarashada ay maaragtay in u arkaan wax fiican in noloshooda ay horumarsan karaan in kalsoonidooda oo korto in haddii luqadda ku adagtaa kalsoonidooda maaragtay ee cabsida inay stage istaagaan ee ma dhahay ani banaan ka hadla laakiin exactly waxa ilmaha u baahan I've realized marka hore waxa iri safiyo meesha ilmaha ka bilowda ina waalidiinta ka bilaabay ahayd ka bacdina ilmaha ku xujiyo laakiin labadoodina isku wada rabaa maadaama hadda ilmihii aan sameeyay waxaan niyadeeda soo gashay in waalidiintan ay u baahan yihiin oo awal waxaan ka dhigay 20 bisha oo hadda soo dhaweeyay waxaana ka dhigay 7 bisha May hadduu Ilaahay idmo waxaan naga xigay waqti badan ma aan 7 bisha May ilaa waxaan qaadanayaa waalidiin xoogaa ah marka waxaan idin dhihi lahaa insha Allah contact ila soo sameey lambarkayga meeshu ku jira hal maalin waaye wax nin ahna ma bari doono dumar waaye dumar oo gabdho muslim ah iyo aniga maaragtay aan tababarka siin doono hadduu Ilaahay idmo waxayna noqon doontaa around London either Stratford ama Baker Street aadan u mahadsantihiin jazakumullahu khairan haddiyay ubad kala helaa labadii hoy wadaayagleelaa hadday hana qaad noqdaan haddiyay ubad kala helaa labadii hoy wadaayagleelaa hadday hana qaad noqdaan haddiyay ubad kala helaa miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan labadii hoy wadaayagleelaa hadday hana qaad noqdaan haddiyay ubad kala helaa labadii hoy wadaayagleelaa hadday hana qaad noqdaan haddiyay ubad kala helaa miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan runba lagu guursadaa hanta ubad lagu dhisaa horumar la tiigsadaa runba lagu guursadaa hantiba ubad lagu dhisaa horumar la tiigsadaa miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan miyaysan hagaagsanayn inay hadalkala maqlaan war miyaysan hagaagsanayn
inay hadalkala maqlaan